wadhaafka halka yaala waa kii Soomaaliland dhex yaalay laascaanood iyo Soomaaliland inteeda kale haddaan la daweynna halka wixii ka dhacay aakhir ka dhici doona oo kale lamida ka dhici doona wati cali khaliif galay ilaahay naxariistiisa ka waraabiye ka qeylin jiray war hooyay dadka hal dhageysto war hooyay dadkaas waxay ku qancaan bay u baahan yihiin bil xaqiiqatan watiyo kale hadaladooda waxa ku jirtay Soomaaliland baa laga soo duulay tignika xuduuda la keenay alla waxaas waa been cad oo aanay waxba ka jirin dawladii hore ee tagtay maamulkii hore ee tagay dadka dhibi jiray markii uu ONF la dagaalamayay in dadka deegaanka degan waayeelkiisa loo soo bandhigay inay dagaalka ka qayb qaataan oo dawladdu hubayso dadkaas waa diideen taasoo jirto waxa jirtay in ONF ay gubaysay gaadiidka dadka isaaqa la yiraahdo ee dhexdooda taga inta ninka deegaanka degan ee isaaq ama dir uu haystay dawladda laga leeyahay oo u cadawga oo xaqiraysa oo waxba u ogolayn oo xil u ogolayn oo gobol u ogolayn bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'da assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh maanta waxaan doonayaa in halkan kelmado kooban ka yiraahdo arrimaha nabadgelyada khaasatan arrinta ka dhacday dawladda deegaanka iyo niman aan arkayay odayaalo oo waayeela oo aan hadalkooda iyo da'doodu islaagayn ugu horeyn dibta ka dhacday deegaanka dacwalay ee ka tirsan degmada Xarshin sida wax u dhaceen waynu ka xunnahay dad walaalaa ehla hadii dawladdiina hadii shacab yihiin baa dhibaato ka dhex dhacday qadarta alla la baajin maayo ugu horeyso wixii dhintay Allah u naxariisto wixii dhaawacmina Allah u bogadhayo dhamaan waa dad walaalo ah oo muslima oo ehla oo inaan yaabtiga oo isdalay in marlabaadka waa maamul iyo dawlad iyo shacabkeedii marka shaydaan u baa ka eegay dhibtii dhacday waa ka xunnahay waxaan aad ugu faraxsanahay in maamulka dawladda deegaanka oo hogaaminayo madaxweyne Mustafa uu kaalin nabadeed iyo kaalin dulqaad iyo kaalin turaale muujiyay sidoo ku sifaysnaa waxa kale oo yana mahad naqleh dawladda deegaankuna ay sheegeen dawladda Soomaaliland iyo xukuumadda cusub inay doorkeeda qaadatay jaarnimo iyo kala shaqeynada iyo walaalnimo maadaama dadku dad isku mid yahay oo dadka halka degani dadka Soomaaliland degan ay ka mid yihiin oo dad ay yihiin sida fiican labada maamul arrinta wada maamuleen ee arrinta nabadgelyada ugu soo dabaalay ee waayeelkii labada dhinac u soo gurmaday aan maanta aanu halkan shalay ka diray waayeel balaaran oo maaragtay u gurmaday arrinta wanaageedii iyo wada noolaanshaheedii iyo xasilinteeda nabadda arrinta aad baan u bogaadinayaa cid kasta oo kaga qayb qaadatay nabadgelyo wanaag waxaan ka xumay dhibaatada dadkeena ka dhex dhacday siba Soomaalida sida arrinta imkaan ka hadlayo sida taageeri gaabo sida tii laascaanood inay dad qurba jooga oo sharwadayaali ka shaqeeyaan sidii dadka islaamka isugu shidilaayeen ee dhiigga islaamka u daadin lahayn ay maalkooda ku bixiyaan ay dadka maatada ah wax uga soo ururiyaan iyagoo dana gaar kale haddaba waxaan anigu markii hore moodi jiray dadkaas inay yihiin dad YouTuber ah ama dad sharwadayaal ama dhalinyaro ah ama magarata ah waxaan aad ula yaabay oo aan maanta dhageystay waayeel sheeganaya culimo sheeganaya ugaasyo ragga markii aan arkay nin iga weyn mooyaane aniga nin iga yar aanu ku jirin aan isiri 70 iyo wixii ka sareeyay bay raggaasi ahay oo Sheekh Khaliif lagu yeerayo oo ugaas Ashuur lagu yeerayo oo wada sheekhiya sheeganaya ugaas oo ka hadlayay wax naxli iyo cunfi iyo cuqdad iyo hanjabaad iyo buqdi iyo caro dad dhibaatada halka ka dhacday ay dadna ku xaqirayaan oo xaqooda iyo dadnimadooda iyo deegaanimadooda iyo muwaadinimadooda ku duusinayaan dadna ku taageerayaan dawladda deegaanka ku tirtirseeyaan wax lala yaabay noqotay nin daayari hashido dab iyo dhibaato ama maslaxada ka dayo laakiin in aakhir al-umriya oo ama sheekh sheeganaya ama wadaad sheeganaya inuu dhibaato dhacday inuu wanaag ka galo mooyaane saf ka galo oo falxumo ka galo oo dhulka dadka ka sheegto oo dawladda ka sheegto oo dawladda ku tirtirsiyo oo madaxweynaha ku canaanto waxaan laga aamusi karin bay noqotay
hadalladooda waxaa ku jirtay somaliland baa laga soo duulay tignika xuduudaha la keenay alla waxaas waa been cad oo aanay waxba ka jirin qofka weynuunu beenta sheegana iyadoo beentu markeedaba xaaraana oo nebigeenu sheegay qofka beenta sheega falaysa minna haddana nin weyn oo akhiraal cimri inuu sheego guud ahaan waxaan leeyahay dadka qurba jooga ay raggaas ugu horreeyo imaka maanta igu kalifay inaan hadlaa war ilaahayna ka baqa oo ilaahayna ka cabsada oo dhiigga dadkaa ka ganacsanaysaan dadka maatada ah qurbaa jooga lacagta kaga ururinaysaan ee aad doonaysaan inaad dad islaam oo ehelo walaala isku shidaan hadday tahay erigaaba tahay hadday saarsaano tahay hadday taa dacwale iyo deegaanka xarshin iyo gobolka jare ka dhacday tahayba war iska daaya dadka qurbaa joogay dhaqaalaha laga soo urunaya waxaan u sheegayaa ee tolaaya ka kacda laleeyahay shilinkiina cadaabka ku gelina war cid dambe oo dad islaam oo walaalo oo jaaro Soomaaliya isku shidaysa dhaqaalaha u soo dhiibina ha u dhagan nuglaanina kuwa wanaaga shaqeynaya la shaqeeya intaasaan ka leeyahay guud ahaan nabadgelyada waxaan ka leeyahay in taana nabadgelyada gacanta lagu hayay wanaag ku dhamaanayso tiilaas caanoodna waa yeel dawlad deegaanka ka tagay ay u baxeen oo iyadana sidii wanaag loogu geli lahaa ay wadaan iyo ceerigaabo labadaba waa soo dhaweynaynaa dadka wanaag ka shaqeynaya waxaan leenahay Allah gargaaro xagga anagu aanu joogno iyo waa yeelkayga Soomaaliland gudaheeda jooga anagoo labada dhinacba ah haddii deegaanka tahay dawlad deegaanka Soomaalida iyo gobolka Jarar iyo degmada Xarshin iyo Faafana aanu waa yeelkeedii nahay dhaqankeedii oo ku dhalanay oo degannahay haddii xaggan tahay aanu waa yeelkeedii nahay Soomaaliland waxaanu leenahay diyaar baan u nahay dadka walaalaha ah meel kastoo dhibaato ka jirtay wanaag laga shaqeeyo waxaan u gudbayaa arrinta dawlad deegaanka waxa jira tabasho ay qabaan dadka deegaanka degmooyinka Xarshin Daroor iyo Gaashaamo ilaa Awbare guud ahaan dadka dir ee xuduudda degan gaar ahaan dadka Isaaqa ee xuduudka la leh saddexda gobol ee Faafan iyo Jarar iyo Doolo waxaan leenahay haddaan la isxaq siinin oo la isxaqiro dhibaato ma ku dambaysa ismaandhaaf baa halkaa yaala ismaandhaafka waxaan leeyahay dawladdu ha ogaato siyaasiyiintu ha ogaato kuwa dawladda sare ha ogaadaan shacbiga deegaanku ha ogaadaan madax dhaqameedka deegaanka siiba kuwa kumade iyo kuwa ogaadinba ha ogaadaan arrintaa haddaan dawal loo helin oo aan dadka matala daba la siinin oo waxay deegaanka iyo distriga ka cabanayaan ee gobol iyo degmale aan la siin oo waxa ay maamulka ka cabanayaan ee matalaada aan la siinin oo intay ku leeyihiin in ka badan aan la siinin wax qafiif oo hoos loogu eegaabay ku leeyihiin aan loo aqoonsanin dad dhulka wax ku leh oo dhul baaxad la ku leh waxaan ku uri cudadaas ma baxayso marba marka ka dambayso way soo kari inta ninka deegaanka degan ee Isaaq ama Dir uu haysta dawlad laga leeyahay oo u cadawga oo xaqiraysa oo aan waxba u ogolayn oo xil u ogolayn oo gobol u ogolayn oo degmo u ogolayn u arko soo dhaweyn maaya askarigeeda iyo maamulkeeda cudadaasuna calooshii ku jirta waxay u baahan tahay maamul wanaagsan iyo walaalnimo iyo wada fariisi waayeelka dadka haddaanu nahay waanu ognahay waxay tabanayaan iyo waxay qabaan waqtigeedaanu la sugaynay waqtigeedina waa taagan yahay waxaanu leenahay dadka kale ehelka walaalaha waayeelkiisa iyo maamulkaba ha loo dhaga nuglaado dadka tabashada qaba ee ka soo jeeda dawlad deegaanka Soomaalida ka mid ah ee ka soo jeeda degmooyinka Xarshin Daroor Gaashaamo iyo Awbare ismaandhaafka halkaa yaala waa kii Somaliland dhex yaalay laascaanood iyo Somaliland inteeda kale haddaan la daweynna halkaa wixii ka dhacay akhir ka dhici doona oo kale lamida ka dhici doona watii cali khaliif galay ilaahay naxariistiisa ka waraabiye ka qeelin jiray war hooyay dadka hal dhageysto war hooyay dadkaas waxay ku qancaan bay u baahan yihiin bil xaqiiqantana waatiyo kale anagu balaayo ma rabno wanaag baanu ka talinaynaa weligeed waanu ka talinaynaa waxa maqraati ma doona dawladdii hore ee tagtay maamulkii hore ee tagay dadka dhibi jiray markii uu ONF la dagaalamayay in dadka deegaanka degan waayeelkiisa loo soo bandhigay inay dagaalka ka qayb qaataan oo dawladdu hubayso dadkaas waa diideen golo lagaga talinaya baan fadhiyo anigoo waayeelka u yar dadkaas waa dad walaalaheena waa dad islaama inagu dagaal lama geli karaba la yiri waa dhig isla walaalnimo ka gelina taasoo jirto waxa jirtay in ONF ay gubaysay gaadiidka dadka Isaaqa la yiraahdo ee dhexdooda taga oo boqolaal gaari ku maqan yihiin
taasaa la damcay in loo adeegsado waa la diiday waayeelka isaaq baa diiday in arrintaa la sameeyo oo dagaal lala galo dadkaa sheeganayay dadkaa shacabkaa ogaadeen iyo een laf sheeganayayba fillahi alxamdu maanta maamul wacan baa jooga mustafa cagjar waa madaxweyne dimuqraadi waa madaxweyne degan waa aqoon-yahan anigu mar baan la kulmay waan ku qancay hogaamin hadalkuna yidhi waqtigaan maalintaan kulannay oon saacad malaa wax gaadhaya la joogay waxaan u arkay mas-uul qaran waxaan si kula talinayaa tabaashada dadka degan degmooyinka aan sheegay si dhaqsaa wax looga qabto degmada saddexdaa degmo dadka degan markaan sooba koobo ee isaaq ee degan xarshin iyo daroor iyo gaashaamo 3 gobol bay xuduud la leeyihiin dal 500 kilomitir ah bay degan yihiin faafan bay xuduud la leeyihiin oo jijiga caasimad u tahay jarir bay xuduud la leeyihiin oo dhagax buur caasimad u tahay doolay xuduud la leeyihiin oo wardheer caasimad u tahay iyaguna gobol ma leh sida u dhici karaysa oo wax lagu qancaabaa ma cadaalad baa imise degmaa kordhay inta saddexdaa degmo jireen ee dowlad deegaanka ka kordhay dadka intaa baaxadda leegi ee istiraatiijiyadda degani 12 gobol ee Soomaali state leedahay dowlad deegaanku sidee mid ugu yeelan waaye miyaanay dulmi ahayn waxaanu leenahay war dowladda Itoobiya iyo deegaanka waxaan wanaag ahayn deegaanka loogama hayo wax dhibi kagama kacdo jabhad hubaysani ma gasho qorshaha ugu ma jirto laakiin waxaan ka digayaa dadkaas xuquuqdooda ay doonayaan in xuquuqdooda hala siiyo aad iyo aad baan u salaamayaa dadka intii wanaaga doonaysa arrintaana imika waayeel baa ku maqan labada dawladoodna waa ka wada hadleen waa la iska kaashaday waxaan u cadaynaynaa dadka Soomaaliyeed dawlad deegaanka dawladda federaalka Itoobiya cid kastoo wanaaga jecel cid Soomaaliland ka soo gudubtay oo deegaanka dhibaato ka riday cid u diyaar midna ma jiro laakiin waxa jirta tabashada ayaan la dheeyelsanine si wanaagsan wax looga qabto hadii Ilaahay naftiisa inuu daayo